والد إلهي سبحانه وتعالى ابتليه وحا القرآن كأنه لو شيء نبي نوح عليه الصلاة والسلام. نبي نوح إلهي سبحانه وتعالى وصادري وحو الصادرين إنو ضدك هنونيه سقال بقول كنت السندودنا ضدك كو أخرية إلهي آمنا ولقد أرسلنا نوحا إلى قومه فلبث فيهم 1000 سنة إلا 50 عام. إلهي سبحانه وتعالى نبي نوح بصادري ضد الصادري سقال بقول كنت السندود أيو حكو أخرية وحنو كقبل هذا قوس كيس وايو wuxuu fahamsanaa ahamiyadda qoysku uu leeyahay wuxuu ogaa in mas'uuliyadiisu gurigiisa ay ka bilaabmayso. ilaahay subxaanahu wa tacaala wuxuu nooga sheekeeyey nebi nuux iyo inaan uu dhalayo caasiya waa xaala istithnaa'iya waa laga yaabaa inay nagu dhacdo waa laga yaabaa adigoo qof quman oo saalixada oo ninkaagu nin saalixa uu yahay oo qoys wanaagsan ka soo jeeda oo ilaahay ka cabsanaya oo nabiga sallallahu alayhi wasallam sunnadiisa raacaya inuu ilaahay kugu ibtileeyo mid yar sidoo nabi nuux baa uu ibtileeyay. ilaahay quraanka wuxuu noogu sheegay inuu nabi nuux markii uu doonidii uu dhameeyay inankiisi caasiga ahaa aanu ka quusanin. قرآن كإلهي وحكو شيء وحكو يدي نبي نوح يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. أبو مركب كدوني ذا صور راعو قال هذا لا تشوقين هكمد نقنن يركي يرى وحكو جوابي قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. إلهي وحي نوغو شيغا قرآنك إنو النبي إنو حكوي إنن كيسا آبا صوكر دوني دا يركنا ويري ماي ومباهنين صوكر الدوني دا دي بورتا يعني كقبانا يا موجدان يبيها صوص عضا. إلهي وحي وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. فكان وحوها إلهي سبحانه وتعالى كيري ضدكي إلهي من المغرقين وها بيو أي لقين. نبي نوح عليه الصلاة والسلام ووالد كمو قصن إلمهيسي إلهي سبحانه وتعالى وتوجهي ونادى نوح رب نوح بإلهي الله فقال ربي إن ابني من أهلي إلهي وإن كيبو تريك وقوسي يكتر سنيه وهي إلهي قراك محوكر يحمل فيها من كل زوجين اثنين وأهلك دون إذا وحا صارت وح ولو لوك صار لم يددي كسار يا أهل كاغا. نوح عليه الصلاة والسلام وحيري إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين. وحلن قاضي وعد كاغا بلن تادنا وبلن حقه أدقون أحكم الحاكمين بعده. إلهي وحقو جوابي يا نوح إنه ليس من أهل إنه عمل غير الصالح فلا تسأل ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين. وحنقول هذا مركة إلهي هو ابتلاين كرا لكن حالة استثنائية كما حضلنا وحين كحضلنا حالة عادية أو قوس ولا مسلم وكن ورانكرو مركا وجوه الرئيس مسؤولية ده كاسارا علمها ومحي الدار جبرتها هي دار روح مسلمة أعطاهي مسؤولية ده علمها كاسارا وجوه الرئيس وحوية إن علمها قدون تد آباء قمان يعني جبرتها هبين كده وتدرس قالي وحن كوري إن الرجل وح مسؤولية ده واجب علمه كل وحوية إنه قدانه هو الصالح هذا gabadhana waxa laga doonayaa inay u doonto ilmahay dhali doonto intaanay dhalin inay u doonto ay u doorato aabbo saalixa aabbo masaajidka geeya aabbo qudwad u noqda aabbo asagu gacanta qabta aabbo raganimada bara aabbo cibaadada bara aabbo geesinimada bara aabbo karamnimada iyo karimnimada bara way inay doorataa وإن أدورتا المهن دلي دونتو أبا صالحة لا يابا دمر بدن دمر كان مروين كان نقاب كي جلباب إن إلهي سبحانه وتعالى كعب سنة كما هذا لكن ما أنت دمر بدني إن الدور بدان أنت أركان من صالحة
inay yidhaahdaan kani ama wax ma haysto ama dumar kaluu leeyahay ama xaalad kalaa jirtay anigu waxaan doonayaa mid caynkaasa ay dooratay ku doorato ama gabadh kale hore uma qabo ama xoolo yar buu haystaa ama mansab buu haystaa ay markaa ka boodo xaqi ilmaheedu uu ku lahaan lahaa taasina waxa weeye dulm aad dulmiday ilmaha dhali doontid ilaahayna yowma alqiyaamaha uu kaa waraysanaya waa khiyaar baa lagu siiyey option baa lagu siiyey hooyada markaa waa inay u doorataa rajulun saalix nin ilaahay ka cabsanaya shalayna waynu ka hadalnay salaaxa arajul oo saddex baynu ku sheegnay kow salaaxatu waa inuu salaaxun bidaati asaga iyo inuu ilaahay ta u dhaxaysa waxaynu soo hadal qaadnay akhlaaqdiisa waxaynu soo hadal qaadnay qawaamadiisa wixii aynu shalay ka hadlinay oo dhan waa inay ruuxa dumarka markay doonayso nin guursato waa inay eegtaa inta haddii aad leedahay waa lay qabaa caruura waan dhalay odayguna meelahaasu ka yaraa soo qalqayilaa siyaasadana faruhu kula jira meelahaasu ka soo qowqowleeyaayo maqaaxidaha kama dhammaado guriga soo hoyana waan ka kari la'ay maxaa xala imika waan ku jiraa musiibadii maxaa xala waxaa xala inaad ku dadaashid imika inaad hagaajisid intaad hagaajin karaysid waxaa xala markii hore qarad baad ku dhacday inaad horta ilaahay u toobad keentid waayo ilmahaaga waa dulmiday aabbo xun baad u keentay aabbo aanu berrito ku faanin baad u keentay aabbo aan tacliin iyo iimaan iyo qudwad iyo salaad iyo qiyaam iyo xaj iyo midna mala ahayn baad u keentay waayo ilmuhu aabbihii buu eegtaa